waxay yidhaahdeen odayaashii hore wax waliba arag baan kaa dhig weligay isma lahayn Somaliland oo maxay ahayd dawladdiisii aad barre dhulka jiijiiday haddana Somaliland baa iyadu dhulka isjiijiidi oo odayaasha Xuseen Ismaaciil iyo xildhibaanadii watay habeenna kuma seex runtii waa tacab qasaaray waa halgan qasaaray ayaan islaahay maanta ninkii immunity-ga lahaa ee xildhibaanka ahaa haddii sidii doono cali xaajo idul maraya ayaan arkayay aniga Xuseen Ismaaciilna waxaan lahayn keena heshiiska dabadeedna Xuseen baa layga garab qaaday nacam waan la yaabay oo wax aan arkay ma ahayn walba waayihiisu leeyahay waxa la yidhi xayawaanka waxa ugu hilib jecel waa waraabaha la yidhi adduunka wuxuu ilaahay abuuray oo hilib jecel oo hilibkaan ka dhargin waa waraabaha la yidhi waxaa la odhan jiray ciise waraabe naanaystaa baa noo baxday waxba kama jiraan kuwanan arkay xukuumaddanan arkay ayaa 700 oo waraaba oo alla wax ay ka tagayaan ma jirto ilaa qanjaafulaha waa xoolaha halka cidhibta ugu dambaysa ayay ruugayaan midda kale waxaan la yaabay saaxiltan Saciid Cilmi iyo ay ku jiraan Faadumo Saciid iyo meesha maxaa yaala kolba meel yaruun la iibinayo maxaa gobolada kale wax looga qaban laaya saaxishan maxaa yaala kolba waxaa la leeyahay saldhig baa la iibinaya kol dakad baa la iibinaya kolba wax baa la iibinaya waxaan nii sheegayaa shacabow haddaad qiimo leedihiin waa layni iibin lahaa haddaad qiima laynigu og yahay waa horaa layni iibin lahaa haddii meel South African iyo meeluu layniga iibin lahaa waayo laxajeclo kama qabaan xukuumadda maanta jirta dadka reer Somaliland laxajeclo kama qabaan waxay leeyihiin maxaan maanta soo iibinaa waxaad soo iibinaysaan caynkaayo dekadu waxaad keenaysiin maxay Abu Dhabi weligeen ma aanan arag askari ree Abu Dhabi waxaa la rabaa in dalka nabadgelyada haysta shacabow caanaha yar qabowga bariiska qabowga aan ka cunayno ayaa la rabaa in layna seejo maalinta halkaas saldhigga laga sameeyo Iiraan waxaa ka dambeeya xuutiyiinta waxaa ka dambeeya Iiraan baa madfac soo tuuraysa iyaguna way ku tuurayaan waa taargeysiga burca ku dhacday islaanintaasi go'aantoo qosqoslayso baad arkay haddii taa aanad shacabow ka dhiidhiin cidna waxa u tarin xisbi wadani waxa u tarin maxay ahayd qolo kale waxa u tarin lafahaaga wax u tar anu maanta waan quustay lafihiina wax u tara caruurtiina wax u tara caruurtayadii waddankay ku nooshahay in la isku kaayo dullaayo ayaan ka baqayna xukuumadda maanta jirta waxa weeye waa indhoolo ku arka dhagoola ku maqla lugoola ku gaadha xukuumadda maanta meesha jirta waa indhoolo ku arka dhagoola ku maqla lugoola ku gaadha ninbaa dhagaha waa cilmiyada ilaahay wuuna indhala'aa wuuna dhagala'aa aabbihii baa dhintay waxaa la yidhi sidee loogu sheegay wuuna indhalaayahay wuuna dhagalaayahay xukuumadda maanta jirta saldhiggan iyaa u sheegay dhibaatadiisa way dhagalaayihiin wayna indhalaayihiin waxaan kaga baxayaa wixiina gaadhay ilaahay nabur gardaraa nooga dhigo laakiin dawlad la isku halleeyo oo meeshan joogtaa ma jirto runtii waa quus marna waan quustay marna waan qadhgoostay
maanta waan qadh goostay ali xaajo guradayda maraya kolkaan arkay weliba kamaan dows buu ahaayo intaa buu isku hayay waana 100 jir maan waa 80 jir sii weynayn marka waxaan leeyahay war dalka u tashada war dadka u tashada waxaan kaga baxayaa ilaahay bedel khayr qaba hay noo keen ilaahu bedel khayr qaba hay noo keen ilaahu madarkana inoo shub ilaahu bedel khayr qaba hay noo keen waxaa la yidhaa xisbi abaartan dhacday kulmiye intuu kulmiye joogana iyo xukuumaddaasi way jiraysaa ama ha la yidhaahdo ha lagu daro 100 sannadood baa lagu daray hadday sii jirto cabdiraxmaan oo sugan doorasho la galay inta kulmiya uu joogo haddii wax ka qaadan la waayo sidaa baan iskaga joogaynaa annaguna golahan iska fadhina daraartay doonaan ha neeriyadaan daraartay doonaan iska kaayidaan wassalaamu calaykum.